booliiska deegaanada Sogndifjord ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in laba waalid oo ka mid ah waalidiinta ku noolaa deegaanka ay xabsiga u taxaabeen kadib markii carruurtooda laga helay dhaawacyo jirkooda ah ka oo ay hay'adaha caafimaadka ku wargeliyeen booliiskana ay u soo gurmadeen xaruntii caafimaadka ee carruurta lagu dabiibayay. Tallaabadii ugu horreysay ee booliiska qaadeen ayaa noqotay inay aabbihii dhalay carruurta soo qabtaan oo ay xabsiga dhigaan iyagoo dabadeedna ku xijiyay hooyada carruurta dhashay. Waxaana lagu soo waramayaa labada waalid in ay hadda xabsiga ku jiraan iyadoo carruurtana ay daaweyn iyo daryeelba ka helayaan hay'adaha caafimaadka, waxaana gacanta ku hayso hay'adda daryeelka carruurta. Lamaanahan labada ah ee dhalay carruurta ayaa lagu soo waramayaa inay da'doodu tahay 30 waxayna ku nool yihiin deegaanka Sogndifjord ee dalka Norway. Ninka ayaa lagu soo waramayaa in xabsiga la dhigay markii koowaad iyadoo haweeneyda ama xaaskiisana la soo qabtay oo iyadana xabsiga looga daba keenay haddana su'aalo lagu weydiinayo. Waalidiintan ayaa la sheegay in ay carruur dhowr leeyihiin, ha yeeshee booliiska ayaa waxa ay ka warheleen markii hay'adaha caafimaadka oo daryeel carruurtan loogu keenay ay arkeen dhaawacyo ku yaala jirka carruurta, sidaana ay booliiska kula xiriireen. Qareenka booliiska Marcus Mosen ayaa isagu ku waramaya in ay hadda xabsiga ku hayaan labada waalid waxna laga weydiinayo dhaawacyadan iyo dhibkan carruurtan yaryar ee ay dhaleen ku yaalo. Waxaana hadda lagu soo waramayaa in ay la tacaalayaan oo ay daryeelayaan hay'adda loogu talagalay carruurta. Waxaana lagu soo waramayaa in haweeneyda iyo ninkeedaba hadda baaritaano iyo su'aalo lagu weydiinayo xabsiga, iyagoo sidoo kalena la sheegayo in ay inkireen in ay carruurtooda dhibaateyn iyo waxyeelaba ay u geysteen. Ha yeeshee waxa ay booliiska iyo hay'adda carruurtuba sheegaysaa in dhibkan ay ka mas'uul yihiin labada waalid oo hadda xabsiga lagu hayo, carruurtoodana hadda ay gacanta ku hayaan hay'adda carruurta. Waalidiin badan ayaa dhibaatooyin kala kulma hay'adaha carruurta, kuwa oo lagu soo oogo kiisas iyo dacwado kala duwan kuwa oo ku saabsan carruurtooda, taa oo marka dambe sababta in carruurta lagala wareego iyagana xabsi loo taxaabo, sida haddaba ku dhacday labadan waalid oo hadda xabsiga ku sugan, carruurtooda aadka u yaryarna ay gacanta ku hayaan hay'adda carruurta. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.